ka sameynaysa adeegyada ay bulshadu u baahan tahay berbero oo kamid ah magaalooyinka ugu taariikhda iyo faca weyn Soomaaliland isla markaasina ay ku yaalaan haraaga dhismayaasha ay ka tageen dawladihii iyo ganacsatada kala duwanaa ee berbera degana waayadii aynu soo dhaafnay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn waqtiga rasmiga ah ee berbera la degay haddana waxa ka sii muuqda haraa ay ka tageen dawladihii Roomaanka, Greek, Turkiga, Masaarida iyo sidoo kale wadihii Ingiriiska, Ruushka iyo Mareykanka iyo dawladihii ka dambeeyay. hadda magaalada berbera ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu horumarsan Soomaaliland isla markaasina ay ka hirgaleen mashaariic waaweyn oo maalgasho ay hirgeliyeen dawladaha shisheeye qaarkood halka kuwa kalena ay dad ganacsatada wadaniga ah ay maalgeliyeen way ka mid yihiin maalgelinta dekada berbera Verizonka iyo sidoo kale airportka caalamiga ah ama madaarka magaalada berbera iyo kuwa ay sidoo kale hirgelinayaan ganacsatada wadaniga sida warshada weyn ee daqiiqda, warshada jingada, warshadaha kalluunka iyo sidoo kale kuwa yaryar oo aad u tiro badan oo waqtigan ka socda magaalada berbera. marka hadaba laga yimaado mashaariicdaasi waxa sidoo kale jira kuwa ay jaangooyaan maamulka degmadu ama golaha deegaanku oo sanad walba la hirgeliyo waxaana mashaariicdaasi ka mid ah kuwa kor loogu qaadayo adeegyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo sidoo kale bilicda magaalada berbera oo ay wadooyinku ugu horeeyaan. wadooyinka berbera waxay ku hana qaadeen oo ay maanta sharaftan u yeelaan mudnaanta koobaad xansiina wadadii jirtay horta wadooyin aad u tiro badan oo gaadhaya 100 kilomitir oo isku wareega ayaa laga hirgeliyay gudaha magaalada berbera kuwaas oo ay maamulka dawladda hoose ay sanad walba qorshaha ku darsadaan wadooyin kala duwan. marka waxaan ku bilownay waddo kasta in dib loo hagaajiyo asfalna la dhigo marka runtii wadooyin qurux badan oo bilic badan ayaanu sameynay de waxaan xasuustaa maalin dhoweedba Mukhtaar baa soo dhigay sawir halkan intii ka horeysay waqtigiina la doortay wadada magaalada caantinada meesha la aadonka cidna garanaysa caantinada labadii kaawada weynaaye istabaan ku hayeen baa ku yaalay meesha jarna way meesha aad u kala fogaa mitir bay ka hooseysay de maanta noo dhulkaas mana quruxiisa aliyaabtide de labada weeya wadooyinka dhamaantood maanta marka laga reebo lagu wado wax dhamaantood asfal baan ka dhignay tarmiguna waa ka asaaska ah imka wadada laba jeer bay cimrigeedu sii jirayaan marka wadooyinkii hore de waa wax indhayna ku aragtay oo maanta waxba ku noqon maayo wadooyin aad u fiican oo tayo leh ayaa magaalada gudaheeda ka qabsoomay in la ilaaliyo oo aan isbedelna waa muhiim weeyaan. sanadkan wadooyin runtii aan xilnay dhimahooduna sareeyo oo ay shidaalkina uu kacay daamirkuna uu kacay ayaanu insha Allah qaban doonaa wadooyinkaasi waa lixda wado laba wado aad u qurux badan insha Allah hordhaceedan sii sheegi doonaa wadada koowaad oo wadadan imika 2 kilomitir 300 mitir ah xaafada Finland dhexmarta isku xidha wadada Burcay Hargeysa isku xidhi doonta wadadaas waxaan ugu talagalnay 3 mitir oo dhexda ah oo la beerayo 5 mitir iyo 5 mitir 10 mitir ah wado xanqada tarmiga oo asfal ma aha marda ma saar doona laakiin waa tarmig aad u adag oo tarmiga ma waxa ku dhowdahay sometimes asfalka ku dhawaata laga garto ku horaan sameynaba mitir iyo badna waxa weeyaan safety-ga waxa ku xigaya sidewalk hadana ku xigaya wadadaasi 24 mitir buu balaceedu noqonaya dhexroorkeedu noqonaya dharkeeduna waxa weeyaan 2 kilomitir 300 insha Allah maanta sawirkeedu ma muuqanayo laakiin birito markuu dhamaado dhowr bilood ka bacdi 3 bilood ka bacdi ama 2 bilood ka bacdi dhamaan doonta insha Allah guud ahaan boqolaal bay tagayaan hadii aan wanaga hore sheegnay 130 kilomitir naas noqonaya marka laga soo bilaabo 2013 ilaa imika wadooyinkan sameeyay wadooyinka qaar baan laba jeer sameeyay salahan magtana ku sheeganoo kale intaanu tarmigi dhignay oo hagaajinay sanadkii hore sanadkii dambe asfal dhignay marka laba jeer bay wadada sameysatay waa laba qiime leedahay wadada hadaba cajaa'ibka ah ee dadka magaalada hoose ku nool magaalada xeebta laga degaa runtii badda laga degaa daaro iyo barwaaqo ay aad u nafisi doonaan oo wadada weyn maxaan ku hadaaye BBC-da wadadaas wadada la mid tahay wadana dharahana waa kilomitir 900 meelaha kilomitir 900 waa laba xatiyaduna iyo asaas leeyahay inta ay leeyahay akshay wada kale oo iyadu Scandinavian ka baxdo ma soo dabiisa mar doonta oo shida tagi doonta laakiin kama baxayso miisaaniyadeeda qorshaha miisaaniyadeeda kuma jirto muwaadiniinta infrastructure ee shida dhanee kalluumaysiga ee dhaqaalaha badan galiyay baan
anagu si diyaarnay sarfeegi inay wadada aan intii waajibkayga sii qaadanay wali waxaan diyaarnay insha Allah wax kala qabano wadooyinka berbera ay kamid yihiin halbowlayaasha dhaqaalaha kuwa suurta geliyay berbera noqoto berbera maanta la amaanayo maanta berbera noqoto berbera cagaaran maanta berbera noqoto beberada lagu haysto maxay hay'ada wadooyinka quruxda iyo wadooyinka maanta berbera laga daawanayo waxa wadooyinka lagu haysta quruxdaas lagu haysta iyo wadooyinkaas lagu haysta wadooyinka inta badan waxa kor u qaadan kaabayaasha dhaqaalaha waxa kor u qaadan fitaanka magaalada runtii 10 sano u dambeeyay berbera waxa ku socday fitaan aan caadi ahayn taalo waxa sababa meel kasta wada laga hirgeliyo waxa kor u kacay dhaqaalaheega waxa abuurmaya ganacsiyo waxa abuurmaya shaqo abuur taalo waxa sababa hirgelinta wadooyinka doorta bacad baarki meesida xagaaba berberaarki meesida geed bad ku siinaysanaysa waa ma sha Allah way taas talabada xaqi nadaafadana boqolkiiba boqol ba laga gaaray berbera marka ay qabowgu soo galo tuqsiba la arki jiray macaamka tuqsiga la marka nadaafada ay halkii ka gaadhay markii hore saddex qof gaariga hadaan saarno عندنا نوت هاروني داوع بس شو قاري يجي لك شو يقول مكاس أفر سنة يباد ودي يسمى كشوف بلا ولا دقي وادقة أركا magaalada horta aad baa u dhisantay aad baa loo dhisay dawadar kaysa waxaan u laamiyaala marka aad iyo aad anagu dadka wadooyinka u sacabtuma u baneeya oo ka gura u diyaarka degan ay u fiican u sacabtumaya soo dhaweynaya baanu nahay waxaanu leenahay maayarkii berbera malabku beeray oo ninka adigi aanuga ayar saaray oo diya xaski ninkii aad yar naga guro ilaahay barakeeyo miyaanadoo kale baaradka imanaya Mukhtaar Cabdiraxmaan